kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada Qowl Media TV waxaad xogta qarsoon ku maqli doontaan xaaladii ugu dambeysay duqeymihii ay saaka Israel ku qaaday Gaza iyo khasaaraha ka dhashay. Si aad u hesho wararka iyo xogaha muhiimka ah oon halkan soo dhigno, subscribe dheh barta aynu ku leenahay YouTube-ka, gambaleelka furo haddii aad nagala socoto barta aynu ku leenahay Facebook-ga, like iyo follow inoo samee adigoo inala baahinaya muuqaalka si uu u gaaro qof sidaadoo kale xushmad leh. Kusoo dhawaada mar kale Qowl Media TV iyo xogta qarsoon. Israel ayaa duulaan ballaaran oo isugu jira duqeymo baaxad leh oo cirka iyo madaafiic ku qaaday maanta oo Jimcaha magaalada Gaza. Waxa ay sheegtay inay beegsatay shabakad ciidan oo dhulka hoostiisa marin ama jid maro ku leh oo ay leeyihiin reer Falastiin oo fadhigoodu yahay magaalada Gaza, iyada oo loogu magac daray Metroga ama wadooyinka mara dhulka hoostiisa. Marinka dhulka hoostiisa ayay kooxaha iska caabinta kaga soo horjooda Israel waxay u isticmaalaan weeraro isugu jira gantaalo oo lagu qaado magaalooyinka Israel. Afhayeen u hadlay militariga Israel ayaa sheegay in ciidamada dhulka ay ka qayb qaateen 40 daqiiqo oo duulaan ka hor weeraradii waaberigii dhacay. Ciidanka Israel umaysan tallaabin marinka Gaza maadaama dagaalada ay galeen maalintii shanaad iyadoo aysan muuqan wax calaamado ah oo xabadda lagu joojin karo, ayuu yiri sargaalka. Saraakiisha caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa sheegay in haweeney iyo 3 carruur oo ay dhashay lagu dilay howlgalkii saaka ay qaaday Israel, isla markaana meydkooda laga soo saaray burburka gurigooda. Khasaaraha ka dhashay duqeymaha Yahuudda ku hayso shacabka reer Falastiin ayaa guud ahaanba gaaraya isbuucan 119 qof oo dhimasho ah, iyadoo ay ku jiraan 31 carruur ah, halka dhimashada dumarkana ay gaartay 19. Waxaa sidoo kale dhaawac uu gaaray 830 qof, waana sida ay saraakiisha caafimaadka ee reer Falastiin ay xaqiijiyeen. Dhanka Israel, gantaalada Xamaas waxa ay militariga Yahuudda sheegeen inay ku dhinteen 7 qof, inkasta oo la rumaysan yahay inay intaasi ka badan yihiin oo ay Yahuuddu qarinayso jabka soo gaaray. Dagaalka ugu cuslaa ee u dhexeeya Israel iyo mintidiinta Gaza tan iyo sanadkii 2014 ayaa dib u bilaabmay Isniintii kadib markii kooxda xukunka haysa ee Xamaas ay gantaalo ku garaaceen Qudus iyo Tel Aviv, iyaga oo ka argoosanaya iska horimaadkii booliska Israel ku galeen Falastiiniyiinta agagaarka masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Qaybaha waqooyiga iyo bariga Gaza, dhawaqa madaafiicda iyo qaraxyada ayay ku kaceen dadka deegaanka aroortii hore ee Jimcaha. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qoysas badan oo deganaa agagaarka xadka ay ka qaxeen guryahooda, iyaga oo qaarkood ay gabaad u raadsadeen iskuulada ay maamusho Qaramada Midoobay. Dhanka kale, gantaalo laga soo riday dalka Lebanon oo lagu waday Israel ayaa ku dhacay badda Mediterranean-ka mana sababin wax khasaare ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Yahuudda. Gantaaladan ayaa u muuqda dagaal cusub oo kaga furmay Yahuudda jiha kale oo la garanayn. Cidda soo tuurtay gantaalada ka yimid dhanka Lebanon ayaan la garanayn. Kooxda Xisbullah ayaa iska fogeysay in ay wax luga ku leedahay. Colaad iyo isnacayb aad u ballaaran ayaa ka dhex taagan shacabka Carabta ee degan gudaha Israel iyo Yahuudda kadib markii isku dhacyo sababay in gacanta la isula tago ka bilowdeen wadooyinka Tel Aviv dhexdeeda. Xilli ay mintidiinta Falastiiniyiinta gantaalo ku soo ridayaan Gaza iyo Israel loo furisay weeraro cirka ah habeennimadii Arbacada iyo maanta oo Jimco ah. Colaadda u dhaxaysa Israel iyo shacabka Carabta ayaa sare u sii kacaysa iyada oo shacabka Carabta ay weerareen meeradaha gawaarida iyo dadka ku nool magaalooyinka guud ahaanba Israel. Booliska ayaa la sheegay inay xireen in ka badan 400 oo qof. Siyaasiyiinta labada dhinac iyo xisbiyada oo dhan ayaa cambaareeyay kacdoonka shacabka. Bayaan uu soo saaray ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayuu ku tilmaamay wax aan loo dulqaadan karin colaadda cusub ee ka dhex qaraxday gudaha deegaanada ay Israel maamusho oo u dhaxeeya shacabka. Intaynu muuqaal midkan la mid ah ku kulmin doono, Ciid Mubaarak. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.